waxaa jira kala duwanaansho midabka indhaha ee noolaha ha ahaado bini'aadame ama xayawaan kaleba. waxaana jira indho buluug ah, kuwo bunni ah, iyo kuwo madow ah, sidoo kalena kuwo cagaaran. waxaana jira sababo badan oo arrintan u sabab ah, ayna ka mid tahay jiinanka ama hidde-sideyaasha la kala dhaxlo iyo sababo kale oon taas ahayn. laakiinse waxaan maanta diiradda ku saaraynaa muuqaalkeenan indhaha nooca cagaarka ah. waxaan isku dayayaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo xaqiiqooyin ku saabsan indhaha cagaarka ah iyo dadka u saaxiibka ah. baaritaanadu waxay sheegayaan in indhaha cagaarani jireen ilaa xilligii bronziyada, taas oo micnaheedu yahay ilaa iyo 10 sano ka hor. ciddii ugu caansanayd oo indhahan lahaydna waxay ahaayeen reer Yurub, gaar ahaan Jarmalka. xilliyadii ama casriyadii hore waxay dadku aaminsanaayeen in dadka indhaha cagaaran ay yihiin dad shar u saaxiib ah, habboon tahayna in laga fogaado. haddii ay tahay haweeney indho cagaaran sidoo kalena leh timo casaan ah ama midabka guduudka loo yaqaan, waxaa loo qaadan jiray inay tahay sixirolad, waxaana laga yaabi jiray inay teedu gasho oo qabri u hoyto. indhaha cagaarani waa indho ay naadir tahay in la helo, welina waa halxiraale laga jawaabi la'yahay. mana dhammaan tirada dadka indhaha cagaaran tiro dhan xataa 2% tirada aadamaha oo dhan, kaasoo midabkanu qofka saaxiibka u ah ka dhigo qof fariid ah kana soocan dadka intiisa kale. waxayna caan ku yihiin inta badan fariidnimo iyo furfurnaan maskaxeed. waxa ugu badan oo saameeya indhaha cagaarani waa hormoonka loo yaqaano melanin. waxaana jira 2 nooc oo melaninka ah, mid madow iyo kan jaalaha ah ama yellow, halka il kasta oon lahayn melanin ay yeelato midabka buluugga ah. indhaha cagaarka ahna ku dhashaan sababtoo ah melaninka madow oo aad ugu yar, sidoo kalena melaninka yellowga ah ama jaalaha oo ku badan. indhaha cagaaran horey uma soo baxaan ilmaha marka uu dhasho, waxayse soo baxaan bilo kadib. ilmaha indhaha cagaaran intooda badan xilliyada dhalashada indhahoodu waa buluug ama midab ciid ah, isbeddelkaasuna waxa uu socdaa sanado. waxay inta badan baaritaan cilmiyeed ku adeegsadaan dadka indhaha midabka furan sida buluugga, midabka ciidda ah iyo cagaarkaba ay u nugul yihiin kansarka indhaha, khaasatan kan isha wiilkeeda ku dhaca. haddii aan ka hadalno cilmi ahaan, dadka indhaha cagaarka u saaxiibka ah waxa ay leeyihiin unugyo madow jaalle ah, halka unugyadaas jaallaha ahi ay u bedelmaan kuwa cagaaran, iyadoo loo tirinayo Rayleigh oo ah Rayleigh Cartwright, laguna magacdaray fiisistihii reer Britain John William Rayleigh, kaas oo caddaynaya qaacidada ah in magacyadu midabka cagaarka ah u muuqdaan maalinta kala barkeeda. dhanka kalena isku darka midabada buluugga iyo jaalluhuba ay dhalaan midabka cagaarka ah. waxa kale oo xusid mudan, inkastoo ay naadir yihiin dadka midabka indhaha cagaaran leh, haddana in dad badan oo dunida caanka ahi ay leeyihiin indho midabkoodu cagaar yahay, ayna ka mid yihiin Channing Tatum, Lainey Taylor, Adele, Emma Stone, Angelina Jolie iyo xidigo kaloo badan. fadlan hadduu ku qanciyey muuqaalkanu, kusoo biir channelka Koryaal kana mid noqo bahda dhanka Korea nolosha.